بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنال كيني SMCC سيدي أيو أروسما المجالانك حلقة أموشا كدب أموشا وحا أي بلابتا حلقة وعنق بنانك وغصابحو المجالانك وانا اسكميت هدي قلين لغوصو سارو iyo hadii ay hooyada caadi u dhasho umusha waqti ahaan waxa aan dhihi karnaa bilaabo marka ay hooyada dhasho ilaa 6 isbuuc waa halka ay Soomaalida u yaqaanaan 40ka waana xilliga ilma galeenka uu bilowdo inuu dib ugu noqdo marxaladiisii hore uu ahaa xilliga uurka ka hor isbedelada ilma galeenka ku dhaco xilliga umusha waxa kamid ah waxa uu ilma galeenka noqdaa mid adag halka uu xilliyada uurka ahaa mid jilicsan oo kala diiqmaayay mar waliba oo cuniga weynaadana waa uu ku fidaayay cabir ahaan ilma galeenka xilliga uurka waa 1,000 gram isbuuca koowaad ee umushana waxa uu noqdaa 500 oo gram isbuuca labaad ee umusha culayska ilma galeenka waxa uu noqdaa 350 gram ugu dambeyn isbuuca lixaad ahna isbuuca ugu dambeeya umusha waxa uu noqdaa ibida cuniga meesha ay ka soo foqday cabir ahaan xilliga uurka waxa ay tahay 7.5 cm halka xilliga umusha dhamaadkeeda ay noqoto 1.5 cm marka ay hooyada dhasho isla markiiba hooyada waxa lagu dhiirigeliyaa in ay nuujiso canuga marka ay hooyada canuga nuujisana waxa uu jirka soo daayaa hormoono ka qayb qaato in ilma galeenka uu dib u aruursamo waa muhiim in aan siino hooyada daryeel buuxdo waxaana kamid ah daryeelkaas hooyada in la siiyo cunno dheelitiran in ay hooyada heshana siino hooyada in xilliga umusha in la siiyo daawooyin jeermis dilayaal ah sababtoo ah waxa ay u nugushahay bakteeriyo mahadsanidin